wacan u wanaagsan saaxiibayaal soo dhowaada muuqaalkan waxaynu ku lafa guraynaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan afrika oo ujeediyey hoggaanka midowda afrika maxamuud cali yuusuf intaynaan u gelin turjumaadda khudbaddan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar channelka hana soo falow gare like saar muuqaalkan sii sheer gare oo la wadaag saaxiibadaada wixii aragtidaada hana kommentiga nagula wadaag cabdixamiid khadka ayaan ahay saaxiibayaal soo dhowaada mar kale of the deliberations and discussions took place in this hall with regard to peace and security on the continent. inta badanna hadoodaha iyo falanqayntu waxa ay ka dhaceen howlkan gaar ahaana arrimaha nabadda iyo amniga qaaradda dib u habeynta aan rabno in aan ku samayno ururka African Union iyo sidoo oo kale ka qaybgalka midowda Afrika ee G20 waxa aan sidoo oo kale helnay warbixinadii gudiyada golaha oo ay hogaaminayeen madaxda dawladuhu ajendaha 2063 uu ka mid ahaa waxaa kale oo la soo bandhigay warbixinta NABARD, AFC, FTA iyo kuwo kale waxaa si gaar ah loo soo bandhigay warbixin ku saabsan dib u habeynta UN Security Council iyo dalabaadka midowda Afrika ee ah in Afrika hesho 2 kursi oo joogto ah oo leh awoodda diidmada veto power iyo 5 kursi oo aan joogto ahayn. That was also something new, given the fact that the financing of our development programs intii lagu jiray 4 maalmood ee shirka waxaa la qabtay ku dhawaad 15 munaasabadood oo dhinac ah waxaa ka mid ahaa shirka ganacsatada Afrika maadaama maalgelinta barnaamijyada horumarinta ay sii adkaanayso waxaana lagu taliyay in ganacsatada lala shaqeeyo si ay qayb uga noqdaan horumarinta qaaradda. dhacdo kale oo muhiim ah waxa ay ahayd daahfurka mowduuca sanadka ee biyaha iyo fayadhowrka sidoo oo kale waxaa la qabtay shir ku saabsan sida loo xoojin karo nidaamka caafimaadka ee Afrika halkaas oo Afrika CDC oo door weyn ka qaatay. So the conference actually pinpointed the fact that the heads of state will have zero tolerance for inconstitutional or shirku waxa uu cadeeyay in madaxda Afrika ay yeelan doonaan dulqaad kaasi oo ku wajahan afgambiyada sharci darrada ah. shirku sidoo oo kalena waxa uu adkeeyay muhiimadda barnaamijyada aamusinta qoryaha ama dagaalada si loo helo nabad xasilooni iyo horumar qaaradeed. shirku wuxuu sidoo oo kale meel mariyay oo la iskula qaatay in uu taageero dib u habeynta arrimaha amniga nabadgelyada dhaqaalaha iyo ganacsiga si loo gaadho yoolka ajendaha 2063. ajendahaasi waxa uu ku dhisan yahay qorshayaal 10 sano ah qorshayaal 5 sano ah waxaa la bilaabay qorshaha 2024 ilaa 2028 waxaana la rajaynayaa in waxqabad wanaagsan la gaadho muddadaasi. inkasta oo ayna hawshani sahlanayn haddana waxaa jira rajo weyn sababta oo ah Afrika waxa ay leedahay khayraad bini aadam dhaqaale iyo khayraad dabiici ah iyo sidoo oo kale siyaasadaha lagu hirgelin karo ajendayaashaasi 2063. And we launched the 2024-2028 5-year plan, and we would like to see better performance in terms of deliverables in the time frame. shirka sidoo kale waxaa lagu aqoonsaday in gumaysigu uu yahay dembi ka dhan ah bini'aadantinimada. shirweynahan sidoo kalena waxaa lagu cadeeyay in la garab taagan yahay Falastiin iyo sidoo kale shacabka reer Falastiin. waxaa la xusay xaaladaha ka taagan Gaza iyo West Bank. dalalka midowda Afrika waxa ay taageersan yihiin xuquuqda shacabka Falastiin in ay yeeshaan dawlad madax bannaan. sanadkii hore mowduucu waxa uu ahaa magdhowga Afrikaanka iyo faracyadooda ee ku waxyeeloobay
addoonsiga iyo gumaysiga. Shirkan waxaa kale oo lagu adkeeyey in gumaysiga iyo addoonsiga loo arko dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimada. And invited the Prime Minister of the Palestinian Authority to come and deliver his speech here. This is a tradition in this. qoraalka arrintani waxaa soo jeediyey Algeria waxaana ansixiyey oo lagu meelmariyey kulankan. arrintani waxay muujinaysaa sida Afrika ay uga go'an tahay in ay la dagaalamaan noocyada gumaysiga. Explainingkeeduna waxa uu la jaanqaadayaa halgankii xornimada ee 1950-yadii iyo 1960-meedyadii ilaa iyo maanta. aad iyo aad ayaad umahadsan tahay daawade haddii aad halkan nala soo gaadhay. fadlan subscribe noo saar channelka, soo follow garee, like saar muuqaalkan, sii share garee oo la wadaag saaxiibadaada. wixii aragtidaada commentiga nagula wadaag. mahadsanid. cabdixamiid khadka ayaan hay saaxiibayaal.